magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca maamulka Galmudug ayaa waxay sheegayaan in saaka ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Galmudug ay la wareegeen kantaroolada laga soo galo magaalada. ciidanka oo ah kuwa aad u fara badan ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa Gadoodsan isla markaana ay ka cabanayaan mushaar la'aan bilooyinka u dambeeyay soo wajahaysay oo aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen. dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen in ciidanka daraawiishta Galmudug ay qabsadeen ilaa 3 kontarool ee laga soo galo koonfurta magaalada Gaalkacyo oo haatan ay ku sugan yihiin. sidoo kale dadka ayaa ku soo waramay in ciidamada oo ah kuwa wata gaadiidka noocyada dagaalka ay xireen isku socodka gaadiidka isla markaana ay diidan yihiin in gaadiid uu ka baxo magaalada kuwa kalena ay soo galaan. ilaa hadda ma jirto saraakiil ka tirsan ciidanka Galmudug oo ka hadlay ciidanka la wareegay saaka kontaroolada laga soo galo magaalada Gaalkacyo dhinaca maamulka Galmudug. hayeeshee waxaa la tilmaamay inay socdaan dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in ciidanka dib loogu celiyo xeryaha ay ka soo